waxaynu weli ku jirnaa topic mowduuc about ku saabsan advice talada ama waanada. Part 5 waa qaybtii shanaad. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to English with Susman official channel. Topic mowduuc about advice waano ama talo ku saabsan barashada luqadda Ingiriiska ah. Part 5 waa qaybtii shanaad. waa the last part, qaybtii ugu dambeysay ee cashirka naga noo socday. After some time, waqti yar ka bacdi, English will start. Ingiriiska wuxuu bilaabi doonaa coming to you inuu kugu imaado. Automatically inuu kugu imaado. Another great way, hab kaloo muhiim ah oo weyn to surround yourself aad naftaada ku hareerayso with English Ingiriisiga is ay waxay tahay by talking to yourself. Inaad ku dhaada la hadasho. Inaad adiga isla hadasho. By talking to yourself. inaad qudaada ama naftaada la hadasho. Yes, you heard me right. Si fiican baad ii maqasheen. You heard me right. Talk to yourself in English every day. Talk to yourself. Naftaada iskula hadal afka Ingiriisiga maalin walba. Talk to yourself in English iskula hadal every day maalin kasta. Stand in front of a mirror muraayad horteeda and have a conversation. yeelana wada sheekaysi. For example, tusaale, hello, how are you today? Hello, how are you today? See tahay maanta. I'm good, waan fiicanahay. I have a lot of work to do. Shaqo badan oo aan qabtaa ii taalo. But I'm feeling great. Laakiin waxaan dareemayaa fiicnaan weyn baan dareemayaa. This might feel funny. Tani waxaa dhici karta inaad dareento wax la yaab leh funny at first markuu horeyso inaad la yaabto. This might feel funny at first markuu horeyso. But trust me, laakiin aamin. It's one of waxay ka mid tahay the best way, habka ugu fiican to improve, loo ziyaadiyo ama loo kobciyo your speaking skills, xirfadaha ku hadalkaaga. When you talk to markaad la hadasho yourself qudaada, because maxaa yeelay you are practicing without any fear. waxaad ku muraajaceynaysaa ama ku celcelinaysaa cabsi la'aan. kaliya baad tahay waxaad ka baqaysa malaha without any fear. bilaa baqdin baad ku muraajaceynaysaa. There is waxaa jirto an English proverb mamaha Ingiriisiga which says taasoo oranayso a shy person and proud person never learn anything. qof kibir badan iyo qof xishood badan marna wax ma bartaan. A shy person waa ruux xishood badan, ka xishoonayo inuu istaago, ka xishoonayo inuu hadlo, ka xishoonayo inuu qalad galo. A shy person and proud person qof kibir badan isla qabweynba never learn anything. But no ma bartaan. So keep trying. Sida aawid isku dayga what? Keep trying. Because maxaa yeelay trying isku daygu is better than wuxuu ka wanaagsan yahay not trying. inaad waxba isku dayinba. Finally, ugu dambeyntii, I'm advising you. waxaan idinku waaninayaa ama idinkula talinayaa to read more, inaad wax badan aqrisaan. Write more, wax badan qortaan. Speak more, wax badanna ku hadashaan. And listen more, wax badanna dhegeysataan. If you do these 4 ways, haddii aad u samaysaan 4 habood constantly si joogta, you will undoubtedly be, waxaa bilaa shaki la'aana u noqon doontaa a fluent English speaker. hadlaa Ingiriisiga si hakad la'aana uga hadlo. If Allah wills, hadduu la yiraahdo. Improve your pronunciation. sare u qaad dhawaqaada. Improve your pronunciation. dhawaqaada sare u qaad. Topic about advice. Part 5. After some time, English will start coming to you automatically.
Another great way to surround yourself with English is by talking to yourself. Yes, you heard me right. Talk to yourself in English every day. Stand in front of a mirror and have a conversation. For example, hello, how are you today? I'm good. I have a lot of work to do, but I'm feeling great. This might feel funny at first, but trust me, it's one of the best way to improve your speaking skill is when you talk to yourself, because you are practicing without any fear. There is an English proverb which says, a shy person and brute person never learn anything. A shy person and brute person never learn anything. So keep trying, because trying is better than not trying. Finally, I'm advising you to read more, write more, speak more, and listen more. If you do these 4 ways constantly, you will undoubtedly be a fluent English speaker, if Allah wills. Thanks. ألف لك النبي ألف لوس نبي ألف لك